السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dagaalada fara badan ee waaweyn ee xaqa iyo baatilku ku kala baxo ciidamo fara badan ayaa ku dhinta oo daraada qadiyada ay aaminsan yihiin inuu xaqu uu guul gaadho naftooda iyo dhiigooda u hura dagaaladaas marka lagu guuleysto inta badan guusha waxa lagu xasuustaa hogaamiyihii ama taliyihii ciidanka waday ayaa ku soo caanbaxo dadku inta badan ay hadal hayaan laakiin ciidamada fara badan ee yar ama askarta yar ee la dagaalamaysay ee guushan ka dambeysay cidi ma oga عمر بن الخطاب dagaalkeena hawand ay ku guuleysteen muslimku ayaa loo imo loogu bashaarayay inay hawand ay ku guuleysteen muslimiintu markaas artana waxa loo sheegay dadkii ciidanka kamid ah dagaalka ku dhintay markaas waxa lagu iri Nu'man bin Maqran wuxuu ku dhintay dagaalkaas markaas uu ooyay ka xumaaday Umar bin Khattab wuxuu ku riyaa kala dhintay markaas dhowr hogaamiyo loo sheegay ama dhowr saxaabo caan oo culus miisaan culus ku fadhiyay ayaa loo sheegay markaas uu aad u murugooday markaas lagu yiri dad fara badan oo aanad garanay askar fara badan oo aanad garanaynin Umar baa wuxuu yiri baxay sheegaysaa inaan garto ama aanan garan ilaahay subxaanahu wa ta'ala haduu og yahay oo dhinaciisa miisaan culus ay kaga fadhiyaan dadkaas dagaalamayay aan cidin aanay garanayn laakiin dhinaca ilaahay way culus yihiin waanay weyn yihiin samadana caan ay ka yihiin nin askariya oo masaariya oo dalka Masar u dhashay oo ku dhintay dagaalkii October 1973 ay muslimku ama masaaridu ama carabtu ay la gashay yahuuda ayaa bari dhaweyto يعني بعد 22 sanadood ka bacdi ayaa ninkaas ilaahay uu soo bandhigay waraqihiisii iyo geesinimadiisii iyo wuxuu u qabtay diinta islaamka iyo qadiyada islaamka iyo jacaylka dalkiisa uu qabo wuxuu u qabtay ayuu ilaahay soo bandhigay سيدتك وقرتان إنه إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إنه إلهي وناقا يجيد كتبيرتيبا إنه وناقا آنو لومينين وإلهي دين عيسى أتكعو لسطهي يميسان كيسا بآخرة ننكاس وحويا أسكري ليراهو سيد زكريا خليل ننكاس أو دشي كوني سقال بقولي سقالي أفرتن كي دشي oo dagaalka October maalintuu dhintay waxay ahayd da'diisu 22 jir xaafid quraan buu ahaa isagoo yar buu dhowr jeer xareeyay ciidanka la soo eriyay daraada da'diisa yar markii dambe ayaa la ogolaaday wuxuu ka mid noqday ciidanka saaciqada ee masaarida ayuu ka noqday waxa lagu yeeray takliif baa imi waa loo yeeray waxa lagu yiri 6 October-kii kaalay 7 October wuxuu joogay magaalada Siina waxa lagu kalifay inuu yahuud soo socota inuu hor istaago isaga ciidanka masaarida oo la dagaalamaan si uu mashquuliyaan oo ciidanadii masaaridu ay maraan area-daas khadbar liif la yiraahdo markaas intaanu tagin sayid zakariya intaanu tagin ayaa wuxuu dood la galay taliyihiisii wuxuu ku iri taliyo horta waxay lahaayeen dhaqan inuu markuu qofku xirada ciidanka ka baxayo in la siisiyo cunto ku filan 24 saacadood markuu dagaalamo 24 saacadood inuu soo noqdo cunto cusub uu qaato dood buu la gal wuxuu ku iri cunto ma dooni waxa ku bedeshaa rusaas ayuu ku iri ninkii taliyaha ciidanka ayaa ka diido ku iri wanad cunto qaadatid wad gaajoonaysa ma dagaalami kartid adigoo bila awooda sayid zakariya wuxuu ku iri cuntada وان أصمري كرا أو نسومي كرا لكنه ما أتكيسن كرا عدو يهور تاجن أنا وأنا حبض أنا إسكجد دفاع أنا نهاي سنين مركو دود بدن لقالي أيوح وجوب بدلي عنتديسي رصاص فربضن أيو قاتل وجوب بدلي وحقاتي RPG جا أوجار إلى ديوردها لجو سوردو يرصاص تيسي أوجار مدفع ودبر كوكو ستي ديوردي بالجو قادو إسقي عيدا فربضن مصاري وحلو سودتشي إيريا دي لوجو تلقالي إنك جوهر إمادان كوارد يهودو أم عيدا كيهودا wuxuu isku qariyeen ciidanka masaaridu dhagaxyada ama buur yar meesha taalay geedadka dabadooda ay isku qariyeen iyagoo sugaya yahuuda in yar ka bacdi waxay magawaadhi sida ciidan farbadan oo yahuuda iyagoo miina la hordhigay iyo gawaadhidooda ay qarxaday markii gubatay gawaadhidooda ay taas wax ku kaliftay in askartii ka soo baxaan gawaadhidii waxay arkeen iyagoo hor taagan ciidankii masaarida waa la isdhex galo dagaal baa dhacay oo xabada la isla dhacay marka xabada la isla dhacay ayaa waxa dhintay ciidan farabadan oo masaariya iyo ciidan farabadan oo yahuuda
sida loo dagaalamay waxa soo haray ciidanka masaarida 2 nin ay kamid yihiin ninkan sheekadaysa aan ka sheekeynay sayid leeyahay sayidkaas iyo saaxiibkii baa soo haray oo kuwa dagaal la galay yahuudi waxay dileen 12 yahuudi ay halka ku dileen markii dambe saaxiibkiisan xabad baa lagu dhiftay oo uu dhintay keligii baa soo haray marba meel buu cararaa marba meel buu isku qariyaa markii dambena laba dayuuradoodo gurmad ayaa dul istaagtay oo ciidan farabadan yahuudi sida oo doonaysa in uu gurmato ciidanka la dilay intuu qaatay RPG-giisa dawladii koobaad buu ku dhiftay waa ta carartay iyadoo dhaawac uu gaadhay tii kale intay qaraxday ayaa si qasbiyan ayay ciidankii ku jiray intay dallada qaateen bay ka soo degeen samada iyagoo dayuuradii oo leeshay ka baxsanaya isaguna intuu istaagay buu qabtay midfaciisi buu qabtay iyo rusaastiisi sida shimbiraha ayuu soo ugaarsanayay mid kastoo samada ka soo dego dalladii sita halka wuxuu ku dilay 22 yahuudiya oo samada kaga soo degay dalladihii ama madalladihii يعني إمكا كلجي وحدة لبي لبعتن يهودي يسقي صاحب كينا مركي هرا وحيدين نبي 8 يهودي markuu sida ciidankii uu dilay ayaa keligii ba soo haray habeen bay noqotay wuxuu go'aansaday in xiradii uu ku noqdo ciidanka waxa uu soo haray 2 rusaasadood ba uu soo haray isagoo isqarinay doonay inuu xiradii ciidanka uu ku noqdo ayaa waxa ka soo horbaxay si aanu filaynin nin yahuudiya ninkii ba xabad ku dhiftay halkiiba ku dhintay sheekada aad u cajiibka ninkii yahuudiga markiiba uu cararo wuxuu sir wajiga eeg ninkan waxa soo rabshada sameeyay waxa soo dad dilay ay gawaadhida iyo dayuuradaha iyo wax kasta baabiyay bal ninkan majimba mise waa insi balan eega buu iri wajigiisu mbogo inay yaro dhalinyaro ah buu arkay oo 22 jira geesinimadiisi uu ka yaabay ayaa intuu god u qoday ayuu damcay inuu si sharaf leh u aaso laakiin intaanu aasin wuxuu ka qaatay shaayadiisa ama koodhku gashanaa iyo waraaqa isaga u gaaray alaab uu sitay ayuu ka qaatay sir xasuus u hayso markuu aasay si sharaf leh u aasay intuu cirka istaagay buu salaam buu u qaaday salaanta askariga 22 rusaasadoona hawadu ku riday isagoo salaanta askariga u qaadaya oo ka yaabsan ninkan geesinimadiisa iyo libaaxnimadiisa waxaanu qabtoo dhan halkaasii sheekadu ku dhamaatay reerkiisuun baa loo tagay waxa lagu yiri inankiini ma garanayno meydkiisana ma hayno inuu dhintay inuu nool yahay war ma hayno sidii baa sheekadii lagu ilaaway waxa ka dambeysay 22 sanadood maalin intay taariikhdu ahayd 1995 safaaradda dalka Masar iyadoo xaflad samaysay oo xuskii maalintii dagaalka Oktoobar 1973 ay albaabka waxa ka soo galay nin Jarmalka ka imi oo yahuudiya oo xilween ka haya dawladda yahuuda markuu imi wuxuu qaabilay safiirkii masaarida wuxuu ku yiri waxbaan idin haya idin gaara alaabtii buu hordhigay uu hayay wuxuu ku yiri alaabtan waxay khusaysaa askari kamida askarta masaarida oo anaana dilay 1973 dagaalkii Oktoobar alaabtiisina waajib bay ugu ahayd intaasoo dhan ban hayay ninkan aan u qirsanahay geesinimadiisa absanay maanta alaabtiisa idin guddoonsiinaya waa taasiga qabta jaridada yadacood Ahrinot ayaa sheekada ka sheekaysay waa jaridada yahuuda oo dalka Israa'iil ka caana waxa uu bixisay ninka masaariga waxa uu bixisay libaaxi Siina ee dilay 34 yahuudi ee dayuuradna soo riday alaabtu isitay sayid Zakariya uu ninkaas askariga yahuudiga safaaradda u dhiibay waxay ka koobnayd lacag 1 jine iyo 30 qirsh iyo waraaq yar xawaalada reerkiisa uu lacag yar ugu diray iyo waraaq uu soo direen ciidamada masaarida ay ku leeyeen soo bax dagaal baa jira taas waxay 12 cisho ka hor intaanu dhimanin iyo koodhkiisi iyo waraaq walaalkiisa Maxmuud uu qoray oo isaguna ciidanka masaarida kamid ahaa waxa soo dhan waxa ugu qaalisanaa ee ugu muhiimsanaa waraaq uu qoray oo taas ku tusayso niyadiisa wacan iyo sirta isaga ilaahay ka dhaxaysa ilaahay uu doortay inuu shahiid uu noqdo oo maantana sabab u ahayd ilaahay uu soo bandhigo adduunka dhan ninka wanaagiisa waraaqda wuxuu ku qoray waraaqdaas uu damacsanaa inuu reerkiisa ay gaadho taas waxay ahayd 2 cisho ka hor intaanu dhimanin buu qoray wuxuu ku qoray waraaqda haddaan maanta dhinto shahiid baan hay ooyinoo ha cadhoonina sababtu waxa weeyaan ilaahay dhinaciisa darajad sare iyo jannada ayaan ku jira
darajadana ma gaadhaan dad aan ahayn ambiyaaga ayuunbaa gaadha. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun sadaqa allahu alcadiim. waxaanu kala idhi kaas waxa weeyaan hadafkaygu iyo rajadan ilaahay ka qabo inaan shahiid aan u dhinto ilaahay iga aqbala taas. waraaqdana haysta oo xasuus haydin ahaato igu xasuusta, laga yaaba inay noqoto waraaqdii ugu dambaysaan idiin soo qoro. waxa weeyaan taas waraaqdii uu qoray sayid zakariya uu damacsanaa inuu reerkiisa ay gaadho. xukuumaddii masaarida ayaa ninkaas 22 sannadood ka bacdi ayay sheekadiisa dadka u soo bandhigtay say dhalinyaradu ogaadaan inay jiraan shabaab iyo ka lamida nin iyo ka lamida oo da'dooda leeg oo geesi ahaa oo ikhlaas diintiisa lahaa oo xoog lahaa oo taxamul iyo samir lahaa oo xambaarsanaa fikirka jihaadka iyo fikirka inay kelmadda ilaahay inay sarayso inay muhiim tahay oo daraadda taasna dhiigga iyo nafta iyo ubadkaba ina loo hudho inay gartaan inay jiraan dhalinyaro dalkooda jecel iyo karaamadda ummadooda inay tayta ugu qaalisan oo ka qaalisan noloshooda iyo adduunkooda iyo shabaabkoodaba. mutxafka masaarida ee caskariga ayaa la dhigay waraaqiisii wuxuu qoray wixii ku saabsanaa. madaxweynaha mubaarakna wuxuu bixiyey biladda geesinimada darajada uulada ayuu siiyey reerkiisa iyo bilada la yidhaaho xidigta siina taana waxaa la siiyaa dadka wax weyn u qabtay dalka ayaa la siiyaa waana yartay dadka qaata. waxa ugu qaalisan ugu sharafta badan uu helayna waxa weeyaan waraaqda uu qoray ee muujinaysa inuu dagaal u galay daraadda ilaahay subxaana wa tacaala maaha daraadda adduun ama magac inuu galay. haddaba mar kasta waxaa xasuusataan idinkuna wanaag kasta iyo khayr kastaad samaysid xataa hadday noqoto geed aad beertid hays odhanin haddaanad saamaynta wanaaggaas aanad ku arkin noloshaada amaana noloshaada aan wax ka bedelin hays weydiinin ha odhanin tolow ma layga aqbalay ilaahay may arkayaa maxaan u arki way saamaynta wanaagga aan qabto hays weydiinin. laga yaaba inuu sir badan adiga ilaahay inuu idinka dhaxeeyo oo khayr badan aad samaysid oo xarka badan oo wanaagga adigee samada inay idinka dhaxayso laakiin waxaad ogaataa inuu ilaahay subxaana wa tacaala wanaag kastaad samaysid ta ugu yarba ha noqoto inuu ilaahay dhinaciisa aan waxba ka lumaynin oo adduunkana aad saamayntiisa aad ku arkaysid haddaad ku arki weydidna inuu ilaahay u soo bandhigayo dadka iyo cibaadkiisa maalin ka mida maalmaha inuu u soo bandhigayo oo taasuu ilaahay uu doonaya inay dadku tusaale ay kaa dhigtaan ay kugu daydaan iyo si ummadaada iyo reerkaaguba ay kugu faanaan. waxa xasuusataan mar kasta in allaha la yudayicu ajra man axsana camalan iyo wanaag kasta aad samaysid inaad maalin maalmaha ka mida noloshaad arkaysid xataa hadday noqoto markaad dhimatid.